daawadayaasheen qiimaha leh warbaahinta qaranka ee Soomaaliya. Assalaamu calaykum waraxmatullah. meel kastoo aad naga daawanaysaan haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinteenii isboortiga warka oo aan maanta idinka soo gudbin doono xafiiskeena SNTV ee magaalada Jidda. daawasho wacan. ciyaartii finalka tartanka koobka isu taga dhalinyarada jaaliyada Soomaaliyeed ee magaalada Jidda oo isku haleeleen labada kooxood ee kala ah Boondheere iyo FC Baawur ayaa xalay ka dhacday garoonka weyn ee magaalada Jidda iyadoo ciyaartaasi oo ahayd mid si weyn loo sugayay ayaa waxa ugu dambeyntii ciyaartaasi finalka ku guuleystay kooxda Boondheere kadib markii ay 2-0 kaga badisay kooxda FC Baawur oo gashay kaalinta labaad ee tartankaasi iyadoo kaalinta saddexaad ay nasiib u yeelatay kooxdii ku ciyaaraysay Batroolka. haddaba gunaanadii tartankaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay ku-xigeenka qunsulka guud ee qunsuliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Jidda mudane Axmed Maxamuud Diiriye Macruuf, xogeyaha labaad ee qunsuliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Jidda mudane Cali Nuur Macalin iyo marti sharaf kale. haddaba tartanka koobka isu taga dhalinyarada jaaliyada Soomaaliyeed ee magaalada Jidda ayaa waxaa ka qayb qaatay ilaa 12 kooxood oo run ahaantii intii uu socday tartankaasi ee ciyaartooyda soo bandhigeen ciyaaro aad u qanacsan dadweynihii uu soo daawasho tagay oo intaasi dheerta iyadoo garsoorayaasha tartankaasi ay si weyn ugu guuleysteen ama ayba u muujiyeen kaalin hufan ee dhinaca garsooridda tartankaasi. haddaba guulihii laga gaaray tartankaasi ayaa hormuud u ahaa gudoomiyaha tartanka koobka isku taga dhalinyarada Soomaaliyeed ee jaaliyada Soomaaliyeed ee magaalada Jidda ahna gudoomiyaha qabanqaabada tartanka koobkaasi mudane Mustafa Waaberi. haddaba warbaahinta qaranka Soomaaliya SNTV oo goobjoog ka ahayd gabagabada tartankaasi ayaa waxaa xog waraysi kooban oo ku saabsan tartankaasi siiyay gudoomiyaha tartanka koobka isu taga dhalinyarada jaaliyada Soomaaliyeed ee magaalada Jidda mudane Mustafa Waaberi oo hadaladiisa ku bilaabay. dhammaan aad iyo aad u mahadsantiin. waxaan halkan ugu mahadcelinayaa warbaahinta ka soo qayb gashay iyo Mr. Macruuf iyo Mr. Cali Nuur iyo Mr. Cusuble iyo waxaan idin leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin. dhalinyaradan dhiirigelin ayay u tahay. waxaan mar walba idinkaga mahadcelinaa sidii gaar ah oo barnaamijyadan aad ugu xirantihiin iyo howlaha anaga aan ahayn aad nagu garab istaagtiin oo dhalinyaradan wixii wanaag anaga oo qaban oo idinkana aad nala garab istaagtiin. waxaan idin leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin. waxaan si khaas ah ugu mahadcelinayaa guddigayga sharafta leh oo ka shaqeeya koobka isku taga dhalinta Soomaaliyeed ee magaalada Jidda oo u dhabar adkaaday caba iimaan u shaqeeyay oo ugu soo horeeyo gudoomiyaha ku-xigeenka dhalinyarada Mr. Asad Maxamed Xasan Asad wadajir iyo gudoomiyaha ku-xigeenka labaad Mr. Kalaaye iyo guddiga koobka ama gudoomiyaha guddiga sharci dejinta Mr. Saalax Bajaabir oo loo yaqaan Saalax Baala iyo gudoomiyaha ku-xigeenka gudoomiyaha guddiga sharcinta Mr. Xoosh iyo guddiga xalinta khilaafaadka koobka isku taga dhalinta Soomaaliyeed ee magaalada Jidda Mr. Maxamed Shariif loo yaqaan Abu Jaka iyo Xasan Abu Nuurani iyo Mr. Abid. dhammaan waxaan idin leeyahay guddiga kaamil aad iyo aad u mahadsantihiin laano hadaa idinka aanaa lahayn barnaamijyadan oo cabada oo dadka dhan iskugu wada imaaday ma dhici lahayn. marka tahniyad ugu weyn ama waxa mudnaad ugu weyn idinka ayaa idin siinaya. marka aad iyo aad u mahadsantihiin. waxaan bardo halkan ugu sii mahadcelinaa gudoomiyaasha kooxeedka iyo marti sharafta leh ka soo qayb gashay oo ugu soo horeeyo labada kooxood cabada finalka soo gaaray
kooxda Bondere iyo kooxda FC Power waxaan leeyahay insha Allah waxaa idinka rajeynaa in ciyaar qurux badan aad la imaan doontaan insha Allah hadduu ilaahay kala naqdo aad iyo aadaan u mahadsantiin dhammaantiina waxaa idin leeyahay mar walba gacmaha lis heesto Soomaaliya ha noolaato waa saaxiibkiini waa walaalkiini gudoomiyaha dhalinyarada isboortiga jaaliyada Jidda Mr. Mustafa Waberi salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh haddaba markii ay dhammaatay ciyaartaasi finalkeed ayaa waxaa ku-xigeenka qusulka guud mudane macruuf uu koobkii loogu baratamayay tartankaasi uu guddoonsiiyey kooxda Bondere oo gashay kaalinta koobaad ee tartankaasi iyadoo kooxda FC Power la guddoonsiiyey abaalmarinta kaalinta labaad ee tartankaasi علي جامع علمي على كوس ورباهنت قرقة صوماليا SNTV سعودي أرابيا.